السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كاني لبعض برنامجكي تربية عرورتا أما بربارينتا عرورتا وأن أقوم قعدرناي عرورتنا إن أي برتان وحكستا أو أي دين تودا أقباهيهن عروري وحان سوى دقيساني وكسو شاكيساني هرودع كسابسان عشر كانان وحان إسسو ويديني سؤال فربضان وأن نري جوابه وينو إما دونان عروري ما أنتي سؤال شكوبادون عشر كان نكوب بلابانينا waxay tahay ama casharkeena uu ka hadli doonaa sidaan waalidkeen ugu baarka noqon lahayn waa qaybtii koobaad. haddaba markii aan ogaano dhibkii waalidkeenu naga soo maray ayaan waalidkeen u baarka noqon karnaa. waxaan rabaa inaan ogaano dhibkii waalidkeenu naga soo maray. caruuray ma ogtihiin markii u horeysay ee ilaahay idin abuurayay inuu idinku abuuray hooyadiin caloosheeda? su-aashaas haddii lagu weydiiya saad ma u fahamsan tahay? hooyo caloosheeda markii u horeysay ilaahay kugu abuuray, markaas ayaa 40 maalmood ama 40 beri waxaad ahayd wax yar oo biyo ah ayaa hooyo caloosheeda dhexdeeda ku ahayd. kabacdina 40 kale maxaa ahayd 40kii ku xigay? su-aashaas ma isweydiisay? jawaabteeda haddii aad taqaanid waa taqaanaa, ka jawaab. haddii aadan aqoon 40kii dambe maxaad ahayd? aniga kuu sheegaya i dhagayso. 40kii dambe waxay ahayd wax yar oo dhiig ah. adiga dhan wax yar oo dhiiga ayaa ahayd. kabacdi maxaad noqotay dhiiggii kabacdi? su-aashaas jawaab ayay u baahanta caruuray. jawaabteeda laynka rabaa haddii aad taqaaniin, haddii kalena si fiican ii dhagayso. 40 kale ayaa waxaad ahayd cad yar oo hilib ah. u fiirso, 40 beri biyo 40 berina wax yar oo dhiig ah, 40 berina cad yar oo hilib ah. kabacdi maxaa dhacay? 40 iyo 40 iyo 40 waa 120 maalmood ama 120 habeen. kabacdi maxaa dhacay? 120 habeen markii aad hooyo caloosheeda ku jirtay ayaa ilaahay nafta ku geliyay. ilaahay baa nafta ku geliyay. markaas ayaa ilaahay wax kasta oo aad hadhow adduunka ku samay doontid ilaahay uu ku qoray. u fiirsa marka, nafa ilaahay ku geliyo soo maahan. maxaad noqotay hooyo caloosheeda dhexdeeda? hooyada caloosheeda dhexdeeda ayaa waxaa ku noqotay qof dhan ah. hooyo caloosha ku sii daa. ma is ogta adigoo qof dhan ah inaa hooyo caloosheeda ku jirtay? maxaa dhacay haddaba? maadaama hooyo caloosheeda qof dhan ah ku noqotay, hooyo sidii caadiga aheeda hore miyay ahaanaysaa? maya. hooyo way xanuunsatay. hooyo cuntadii sidii hore uma cuni karto. hooyo way jiratay. hooyo waxay bilowday inay matagto. hooyo qof dhan maadaama ay caloosha ku sido, adiga dhan caloosha kugu sido, cuntadii way cuni weyse. matag ayay maantao dhan samaynaysaa. maantao dhan ayay ooyeysaa. ilin ayaa ka da-aysa. habeenkii ma seexo karto. maalinkiina ma joogi karto. hooyo dhakhtar ayay u tagtay. isbitaal ayay gashay. daawo ayay qaadatay. maxaa waxaasoo dhan keenay? adigaa caloosheeda dhex fadhiya. waxaasoo dhan adigaa caloosheeda dhex fadhiya. saas ma u og tahay? hooyo waa adiga hadda ku cayaaraya ama caasinaya ama hadalkeeda diidaya ama ku hadal celinaya. dhibkaas inaad soo marsiida hooyo ma og tahay? intaasoo dhan waxaa ka daran adigoo qof dhan oo weyn oo hooyo sida u dhiban tahay oo wax aysa cuni karin ayay 9 bilood hooyo caloosha kugu siday. ka waran 9 bilood haddii lagu yidhaha qof qaad oo caloosha ku qaad lagu yidhaha ka war. 9 bilood
ayuu hooyo caloosha kugu siday culays saas ma u ogta ku fakar in intaasoo dhan hooyo caloosha kugu siday oo wax fiican aysan cuni karin si fiican u seexo karin culays ay sido wax aysan cabi karin aysan si fiican u noolayn adiga culayskaagay siday kadib maxaa dhacay dhib badan ka bacdi hooyo waxay soo gaartay waqtiga adiga dhalanaysay markii hooyo ay gaartay waqtiga aad dhalanaysay maxaa hooyo soo gaaray hooyo xanuunkii adduunka ugu daraa ayay hooyo la kulantay maxaa yeele adigoo weyn ah hooyo kasoo dhex baxaya xanuun aa qabto hooyo badan saas ma u ogta ma ogid sidaas ma ogid haddii aad sidaas u og tahay hooyo kuma caasideen hooyo hadalka kumaadan soo celiseen hooyo kuma xanaaqdeen hooyo warkeeda ma aadan diideen hooyo hadal xun kumaadan tiraahdeen ee waxaadan ogeyn dhibka ay kaa soo martay hooyo markii aad dhalanaysay xanuunkii adduunka iskugu yimid haddana markii aad dhalatay oo bannaanka aad u soo baxday oo hooyo xanuunkaasi uu soo maray hooyo xooggiyaa ka dhammaaday awooddiyaa ka dhammaatay xanuunkii ayaa xooggii ka dhameeyey maxaa dhacay maxay hooyo tiri ma waxay tiri hooyo iga fogeeye waa idhibaye 9 biloodan waxba ka cuni waaye oo aan ka seexo waaye oo aan naso waaye markuu dhalanayana waa idhibay iga fogeeye mii hooyo tiri maya ma aysan dhihin hooyo iyadoo sida u xanuunsan oo dhibkaas soo martay oo xooggii ka dhammaaday ayay markay dhalatay ku soo qaadatay markaasay wasaqdii kaa dhaqday oo dhar ku gelisay maxay samaysay hooyo naaskeeday ku nuujisay caanaheeday ku nuujisay korka inta ku saaratay ayay caanaheeda ku nuujisay imisay ku nuujinaysay 2 sano oo dhowdhoway ku nuujinaysay oo fiirso caanaheeday ku nuujinaysay ma fahmi kartid waxa hooyo kuu soo qabatay waad iska caasinaysaa carruurey sidaas ma u ogtihiin haddana maxaad samaynaysa intii aad yareed oo dhan hooyo maxaad ku samaynaysay korkeedadaad ku matagaysay korkeedaad ku hunqaacaysa hooyo kuma dhibsanayno ma dhahayn wasaqda iyo qashinka iga fogey ma dhahayn way iska tiraysay way kugu faraxsaneed maxaa kaloo samaynaysay adigoon kaadida iyo saxarada iyo aan waxba iska celi karina hooyo maanta oo dhan ku halaynaysa way kaa tiraysay marka yartaha oo oydid ayuu hooyo ku soo toosinaysa haddaad rabtid warkaas si fiican inaad u fahantid waxaad fiirisaa carruurta kaa yaryar oo dhalata hooyo sida u haysa u fiiri sidaasoo kale aadna soo martay sidaasoo kale hooyo ugu kaatishi jirtay sidaasoo kale hooyo ugu ooyi jirtay sidaasoo kale hooyo ugu matagi jirtay carruurey habeenkii oo dhan aad hooyo ku ooyeysay ayana ma seexanayso haddii aad xanuunsatid hooyo ma seexa jirin adiga laakiin haddii hooyo ay xanuunsan tahay caawo dhan waa iska horodaa saas ma ogta hooyo dhibka inay kaa soo martay carruurey sidaas ma ogtihiin intaasoo dhiba hooyo inay naga soo martay ma ogtihiin haddaba ilaahay baa noo sheegaya intaas hadda aan ka soo hadalnay oo hooyo dhibkay naga soo martay ayuu ilaahay noo sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay waalidkiin u baari noqda maxaa yeelay sidaanaa dhacday dhagaysa aayadda ilaahay wuxuu ku leeyahay ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفرس إلهي وحليه قفك وحان أدر دارني قفك وحان أشيغنا كلبلني inuu labadiisa waalid baari u noqdo oo uu hagaajiyo oo wanaag u sameeyo hooyadiis calooshay ku soo qaaday ayadoo daciifa oo xoog yar oo markii caloosha kugu siday hooyo xooggiyaa ka dhammaaday markii xooggii ka dhammaaday haddana markay ku dhalaysay xooggiyaa ka dhammaaday
haddana markii aad dhalatay xooggiia ka dhammaaday, hooyo waxaas o dhan oo dhibaa soo marsiida, haddana markii ay ku dhashay 2 sano ayay in wax ku dhow ayay ku nuujinaysa. maxaa lagaa rabaa marka? ma inaan hooyo inkirno oo nidhahno maya anigaa fiicnaa sidaana usoo koray, ilaahay muxuuna leeyahay aniga ii mahad celi, maxaa yeele ilaahay isagaa ku abuuray soo maa. waa bara doonaa, waa ka sheekey doonaa. labadaada waalidna u mahad celi. hooyo waa mahadsan tahay, aabba waa mahadsan tahay, khayr ilaahay haydin siiyo, waa isoo koriseen, waa isoo hay jirteen, waa cunta isii jirteen. ilaahay hooyana u mahad celi, aabbana u mahad celi. caruurey intaas aan ogaano si waalidkan ugu fiicnaano, saas waa inaan ogaanaa. haddaba waxaa noo haray qisadii yareedaan idin sheegaya marka. qisadii yareed ee casharka ku saabsanayd ayaan idin sheegayaa. qisadaas waxay ku saabsan tahay qofkii waalidkiisa u baari noqda, hadhow qani u noqda, lacag badana ilaahay siiya, wax fiicana ilaahay siiya. waxaa jiro qur-aanku nooga sheekeeyey sac oo maaragtay qiso dheer lahaa ee la qalay, niman inta u baahdeen, dad hore ayaa inta u baahday ayay sacaas oo sac ay u baahdeen oo ilaahay yidhi qala. saci haddaba wuxuu ahaa sac la waayey oo khatar ah oo asagoo kale aan la heli karin. sac qaaliya ayuu ahaa. saci nimankiisay u raadinayeen oo ay rabeen inay u qalaan, ayay saci waxay ka ag heleen wiil hooyadiis u baariya. wiil hooyadiis baari u ahaa oo hooyadiis u ducayday ayaa saci laga ag helay. wiilkiia saci laga gatay. imisa lacag laga siiyey? lacag badan oo saci markii la qalay haraggiisa intii la eg, yacni go' weyn oo la fidiyey oo dahab laga buuxiyey. go' weyn oo inta la kala bixiyey dahab laga buuxiyey oo imisuu lo goyo, imisoo kun wey. lacag badan oo qaaliya. wiilkaas muxuu ku helay sidaas? ducadii hooyadiis. haddii aad rabtid caruurey in oo ilaahay markaa weynaato wax badan uu ku siiyo, xoolo badan uu ku siiyo, caqli badan uu ku siiyo, cilmi badan uu ku siiyo, caruur badan uu ku siiyo, wax fiican uu ku siiyo, hooyo iyo aabe u baari noqo, u fiicnow. intaas ayaan casharkeena kusoo koobayaa. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.